Soomaali مثلا dilku ma dhamaado sababuhu dhamaan way xeerka maxkamada inanka yar ee aabihii la dilay ama walaalkii la dilay ee odayaaltay fadhiistay yiraahdeen ninkii waa cafinay isaga waxba la weydiinin ama la jajuubay ee markii la qaatayna la yiraahdo adiga laba halaad baa kugu soo hagaagay aabihii ma laba halaad buu kaga sabrayaade Soomaha uu sida intuu ama ka qaan gaadhayo ama mid cidla marayo uu ka helayo uu sugaya waxana aanad u dhamaan weyday iyo dilkana u dhamaan waayay wax weeyaan qofka waynu jujuubna qofna mayna sabirsiinin war Soomaali ma dhibadna runta hadii la sheego dunida loo eego iyo waxa ka jira ma dhibadna laakiin laba ceebood baynu leenahay in farsamayn kari weynay laba ceebood aynu farsamayn kari weynay bay leenahay ceebta qabiilka ku saabsan ee hadii la wada wax soo door mid wax boobi kara inaad meesha geynayso hadii la yiraahdo cadaalad samee tolka inaad gar iyo gardarraba u hiiliso وأنكودا لقى صومرين حانا يهيد إنه عدالة حقا قبله طول كان ينادو عدالة سميسو ضدك كلام مسلم كان ينادو عدالة سميسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علماء وحي اللورا الهوائي هذا وحنسيح وجينيا وننتي للشيء وهرين نبي عليه الصلاة والسلام حتى المامة أبغض الناس إلى الله ثلاث إلى هيدتك وقلنا عبيا هيدتك الصدح وياه والصدح الذنوب وين قال مركا قال لمدي وحال غيمات أبغض الناس إلى الله ثلاث ككواد نبي وحكوت المامي ملحد في الحرم ما الذنوب تواوين كوجلية حرم كقديس ذنبي قويني دي شنو ذنبي إن حرم كإله القصي السمايانا وذنبي لبعض كاسيو حكم دي هيبو نبي صدح دا إلهي ونعبيه وحكى له صدح دا إلهي ونعبيه كم دبو نبي تلمامي مبتغ في الإسلام السنة الجاهلية قف إسلامك لحديث كربو wadadii jaahiliyada inuu wada dhaqamadii diinta ka soo horjeeday wali raba inuu islaamnimada si dhex wado waa muslim islaamnimadiisu waa haystaa laakiin haddana wixii jaahiliyadu ku dhaqmi jirto wali kuntiga ku sitaa oo wuxuu rabaa dhaqankaasi inuu socdo waxa aad moodaa inagu ka Soomaali ahaan dad muslimiin abcan jaddin ahayn انت التاريخ الصوماليات لقرنا يضد صوماليات مسلم بي هاي صومالي الدين كلها يستمين المقام انت مسلم هذاني هدنا واحد شرار رقم دين تآد وقفق وينو لحودني وريره هنية قبائل كينية دد كينوها حرر رقم هذا سوحي كينيين إنه كمد نقولنا مركا كون ونبي وشيء وليه مبتغ في الإسلام السنة الجاهلية ضد السلام لماذا كل إحرادنا إياه وهي جاهلية ضايل هاي مسائل كانوا الشيخ والشريع عبد الناصر مثلا مقهن يوحى قصابسا يا حرر كانوا كدج السني دوا سلام لماذا ينوح كلا نحوضنا markii la iswacdiyo waxa la isu sheegay waa jiraan hadda reer Soomaaliyeed oo uqaashoodu inta shuru qabatay isu yimi marka masaladu taagantay hadda tiraahdo sama lagu fulinaya waxa laga yaabaa in dadku aqbalin ama dad badani waxaan caadayno ahaan jirtay waa la wadaya ku yiraahdaan laakiin iyadoo balaba jirin bay shiriyeen reerkoodii way isugu yeedheen culamadoodii iyo waxgaradkoodii iyo waayeelkoodii way isu yeedheen war waxa diintu ma ogola maxaynu ka yeelaa la isweydiiyay maanta aan xeer ka dejisan daynu hore xeerar u soo lahayn de kuwaaba ragunba soo qoray waxay doontaba ha noqotee qalad iyo sax waxay doontaba ha noqotee waxaynu maanta ka yeelaa waxay go'aansadeen wixii ilaahay inoo soo dejiyaan ka yeelo way ku dhaqeen reerkiina wuu wada qaatay odayna kuma qasbin cidana kuma qasbin ee waa talo reer gaadhay oo intuu reer tashaday ay gaadheen inay qaataan wixii ilaahay uu jideeyey la yiraahdaa agoonka yar Soomaali مثلا dilku ma dhamaado sababuhu dhamaan way xeerka ma kamida inanka yar
ee aabihii la dilay ama walaalkii la dilay ee odayaal intay fadhiisteen yidhaahdeen ninkii waa cafinay isaga waxba la weydiinin ama la jajuubay ee magtii markii la qaatayna la yidhi adiga 2 halaad baa kugu soo hagaagay aabihii ma 2 halaad buu kaga sabrayaa de soo maaha unu sida intuu ama ka qaangaadhayo ama mid cidla maraya uu ka helayo uu sugayaa waxaanay aanadu u dhammaan weyday iyo dilkani u dhammaan waayey wax weeyaan dee qofka waynu jujuubno qofna mayna sabirsiinin laba mid uun bay ahayd inaynu qofka qisaas u ogolaanno oo yidhaahdo aabbahay ninkaas waa dilay ha loo dilo oo qisaas aqbalno iyo wuxuu ku sabray inaynu siino nidhaano war boqolkaa geela kaxayso waad iska badhaadhiyo cafi dadka oo markaa uu arko dee nin aabbihii calalaqal ha waaye wax haystaa laakiin geela reerku qaybsaday isaga xoolo uma aha geela reerku qaybsaday isaga xoolo uma aha wuxuu ku sabraa markaa meesha ma yaaliin waxaan aanadu inooga dhammaan weydaan waxaan wax ka saarayaa xeerkeennan xeerkan aynu ku dhaqmayna inuu yahay waxaan aanadu u dhammaan weyday qoysna u sabri waaye 40 sano ka hor mid la dilay uu leeyahay reer hebel baa dilay reerkeegii marka laba mushkilad taagano kii reerka ninka ka dilayna wuu dulmiyey tolkiisii magta ka qaatayna waa dulmiyeen labada qoloba waa ku dulmiyeen kii abaha dilayna ku dulmi wixii laga qaatay kuwii ku diidayna dayna ku dulmiya agoonkana 2 jeer buu markaa dulmayay marna reerna abihii buu dilay reer xoolihiisa buu qaatay marka waa 2 jeer oo dulmiya idan waa laga yaabaa dadkiina halka fadhiya iyadoo sidaa loo qaybsano inaydan ugu timaadeen oo inaydan xeerarkan idinku dejin laakiin dee rag baa tihiin xeerka waa la bedeli karaa reerkii xeerka lahaana waa loo talin karaa waana la shirin karaa diinna waa qaadan karaa maan arag anigu dad Soomaaliyeed oo meel isugu yimi oo wanaag ka shiray oo isku diiday maan arag dadku hadduu wanaag ku shirayo oo markuu shiro isugu yimaado laakiin iyadoo dhibtu taagantahay haddaad shiriso waa mushkilad iyadoo nabadu taagantahay roonta intaad shiriso inaad tiraahdo war waxaa berri maxaynu ka yeelnaa xeerkeennii hore kaasoo ahaa diintiina saasay sheegtay maxaynu ka yeelnaa inay isweydiisaan dadku uu qaadanaya kaasi waa qodobka hore uu tilmaamay sheekhu qodobka labaad ee uu sheekhu tilmaamay النبي عليه الصلاة والسلام حجرا erayo Anas ibn Malik uu leeyahay khudbad kasta oo nabigu jeediyo uu jeedin jiray khudbad kasta oo nabi maxamed noo jeediyo buu yiri weeraha kama tagi jirin la amanata la iimana liman la amanata lah wala diina liman la ahda lah nabigu uu yiri markasta khudbadaynay wuxuu oran jiray iimaan ma laha cidi amaana lahayni diin ma laha cidi aan ballan lahayni ayuu nabigu ugu oran jiray buu leeyahay alayhi salaatu wasalaam amaanadu way kala weynti amaanada maamulka ugu weyn cibaadadeeduna waa amaano ilaahayna saaray oo laynaga rabo inaynu gudanno xoolaha biniaadamku waa ammaano laakiin maamulku nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة هذا أمانة لمطه قيامه هناك بالنبوي مرة سيدة إليه رسولك سيو ضيع مساء إذا وسد الأمر إلى غير أهله ونوه تلهم أمانة واحد ضيعته مدان مضنين مرة هذا الله سيئ ضدك مدح لو قدوه ما أنت الصومالي يسي شيخ شيخ يدكم بمدحوها haddaad adigu tuug soo saarto iyo mid wax boobaya aakhiraadna waa lagu qabsanayaa waayo adaa boobka ka markhaati aha adaa rabay in wax la boobo minaadaadba xoolahaagu u dhiibateen haddaad tidhi xoolaha ummadda ha loo dhiibo adigu maad u dhiibateen waxaaga ilmaadeer waatiin tol waatiin isku reer waatiin laakiin waxaaga umaad dhiibateen laakiin waxaad ogashay waxa ummadoo dhan in loo dhiibo dee waa laba tuugu maateen waa tuug iyo tuug kalkaal waa laba shaqada waa wada wadeen weeyaan runta markaynu isu sheegno haddaynu inagu daacad ka nahay dadka samahiisana doonayno waa samayn karaynaa
ويدك إنه حلك كنا ده رج أرديهم قولي وضع وقوي من يعني وهو بالتاس بالعكس تواقوي من يمد أردي وقوي لكن هذا يهيد أنت تغير كأكتير تراهده وركاسة وقضى عدسنا إلهي درتي ضدك أو عدالة سمينية عدالة وين وده قاري لهيد مركا عقل ولا بهدو كاكيري لها سومالي وكعي لهيد وكفته وكعي لهيد عدالة بانا ينادق كان يروح صوب بابادنا وحكو تاري مايان لكن إنك وحا أمان نقطي توغني مدى سادنا دادن ليراني كاهبل والله إلا بس النضوط بده ماشا كشقي يورير كينا قربو لسا يعني يرر كينا جامعة ودرا وتوغو وحدكو أمانسا حتى اللي بدأ توغو تقفك عادي قال الحضابة كفي عن ويقفك عادي قال الحضابة حلقة بلد ويسوع لسو إن تراوريه ويعفي بريبا وحد له ضاي طابطي 10 مليون وقف وحده هداد حدا آخرية كاسارية 10 مليون وقف أقون يمد شبان يمد هندلا يمد بابا صنبله إلا 10 مليون بيتري كده حيسي 10 مليون وحده قف كي قاطي آخر سو بدبادة يعفينية هذيك واحد كويلا ما كان قاطو وكوسو بدري كرا وريو سكي يعف وكو علين كرا سو بينو ودا حاجون كرنا لكن 10 مليون وقف وحده هداك وقول تجين إلهنا وحوله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة عدي وحضاه غلول قوة حوله لو دليه هي عدة وحكا حضاه أما فيقية جهات كهذا أما مالك بيت المسلمين كهذا موحد وراده ومن يغلل با إلهي عدي وحضاه يأتي بما غل يوم القيامة وهذا أن توجد الدوينه توجد كلامك كجديسنتي وحيمان يا وحي وحدا يسوي تورتك سيدا قيامة كنتم كسندتك وتاجي هي بنك قيامة ليس حسابنا أيو هذو أور حدا يدشوا أوركو كساري يسوق قيلنا يا ولبا هيدا هذان حديثكم حشاقي يا أوركو يسوق عدله عباضية ويدك على الربعين لا تصيه يوم العرض عبتي سين مغط كيرو الحدا يسوق دش كسارا لو يمنيا 7 أرضين يدوش كسارا waxa calaamad u ah bay yiraahdeen qof kasto tuuga noocaasiya galay isagoo tuurta ku sitay inuu yimaado waxaan leeyahay markaa war Soomaali ma dhibadna runta hadii la sheego dunida loo eego iyo waxa ka jira ma dhibadna laakiin laba ceebood baynu leenahay in farsamayn kari weyni laba ceebood baynu farsamayn kari weyna bay leenahay ceebta qabiilka ku saabsan haddii la wadaa wax soo door mid wax boobi kara inaad meesha geynayso haddii la yidhaahdo cadaalad samee tolka inaad gar iyo gardarraba u hiiliso waa dhankooda lagaa soo marin waxaanay ahayd inaynu cadaaladda xaggan ka bilowno tolkaana inaad u cadaalad samayso dadka kale muslimkaana inaad u cadaalad samayso haddaynu qabyaalad xal u helno ama magteed ha noqoto ama xeerkeed ha noqoto ama say wax u qaybsanaysa ha noqoto ama cadaalad raadinteeda ha noqoto haddaynu xal u helno Soomaali xal waa u helina ka labaadna waa mid odayadii hore intaasi xal u raadinayna ku soo biiray oo waa balwadu dadkii hore way inaga waxyeen way inaga adduun yaraayeen Soomaalida maanta joogta ka adduun badan Soomaalidii hore odayaal waaweyn oo Soomaaliyeed baan xabsi bari ku wada jirnaa sheekeynaya markaa waxaa ka sheekeynaya magaalooyinku say ahaayeen iyo iyagoo ciyaal yaryar in garow baa la karin jiray bay yidhaahdeenoo fuudka garowga ka soo hadha ayaan weydiisan jirnay kuwa hudheelko fuudkaasay dooxa nagaga aasi jireen bay yidhahdeen fuudkay xataa noo diidi jireen fuud garowba ayay naf bidayeen Soomaalidu maanta ay xoolo badan tahay maanta maalay ka xoolo badan tahay ma jirto inkastoo problemaysto laakiin Soomaaliga hore cunada ceeb buu yaqaan cadquureedna gaajo ka doorbidi jiray isagoo baahanna wuu seexan jiray ninka waayeelka ama ninka waxgaradka ama qofka magaca lehi isagoo waxba afka saarin cunaduna kuma badnayn oday Soomaaliyeed odayadii Soomaalida ka tiri jiray waxa la sheegay
oday baan ku idhahda suuq gamaad iska daysa markaas igu yidhi hebel nin la yidhaahdo oo reer hebel u ahaa odaygooda bisha ramadaan buu igu yidhi bisha ramadaan oo dhan 2 wasaladood oo hilib iyo 18 koob oo subag u cabbi jiray buu yidhi 15 hore neef u qali jiray wasalad buu ka cuni jiray inta ku xigta koob subag u cabbi jiray ninkaas koob subag u cunay intuu ka dhigtay iska seexanay ama dan kala hay oo soomay waxaan uga dan leeyahay iyadoo baahidu taalo ay dadku asturnaayeen hadda bini'aadamkii baa wada baahi laga dhigay balwada inoogu darsamay balwadaasi waxay keensatay qofku wuxuu haystaaba inaanu ku filayn wax kastoo agtaada yaalla inaan ku filayn waxaa laga yaabaa maanta lacagta moobilka aynu ku bixinaa inay reer masruufi jirtay 30 sano ka hor 40 sano ka hor lacagta maanta aynu moobilka ku isticmaalno kharashka moobilka aynu ku bixinaa inuu reer masruufi jiray dadku markuu wada baahi noqday isla markaana dhaqaalo ku filan baahidan oo dhammaan aanu jirin waxaa batay laaluushkii iyo musuqmaasuqii iyo wax isweydaarintii iyo ammaanad darradii iyo waxa kan waxaa inagu sii daray maanta khamri qaad xashiishad soomaaliya wax walba hadda waa cabtaa waagii hore soomaaliyin yar baa waxaan cuni jirtay anigu waxaa soo gaadhay magaalooyinka waaweyn soomaaliyeed oo 3 laan loobar yimaadaan 3 laan loobar buuqaadka gobolka burco oo dhan soo gala ayuu ahaan jiray maantana waddada markaan maro dhowr iyo 10 gaadhi oo tareella ah bay dhaafo qaadsida waa 2-3 saacadood aan meesha sii socdo intii waaga intaanu bariyin martay iyo inta galka dambe maraysay waxa marka laga yimaado waxaana Soomaaliya cunaysaa meelibana meeshay galbeed ka sii xigtay kaga sii badantay way soo dhaafto hadda magaalooyinka qaadcun yar baadiyaha xun kulli gobolada aan ka imi baadiyaha ka liita magaalada dad badan oo waayeel oo waaweyn oo waxgarad oo aan qaad cunayn baad arkaysaa magaalada waxaa laga yaabaa dhallinyaradii jaamacaadka oo dhan oo intooda badan aan qaad cunayn baad arkaysaa laakiin baadiyaha 80 jirku u qayaraa oo sigaarku cabaa dhallinyartoodiina khamriga cabtaa geelasha khamri lagu hor cabaa geelasha Soomaaliyeed baa khamri lagu hor cabaa dhul badan oo Soomaaliyeed dhalinyarada ka yimid waxaan uga dan leeyahay markaa xumihii wuu soo kordhaya iyadoo baahidii sii badanaysa haddana xumihiina soo kordhaya balwadu hadday meesha timaado controlku wuu lumaya markaa dad wax booba iyo dad wax hada iyo dad wax dhacay way qofka balwad ka dambaysa balwadahana dee dadkii idinka u madax ah sidii loola dagaalami lahaa ee loo joojin lahaa ama loo yarayn lahaa horta dee waxa qudhay lagu joojin karaa waa diin dadka hadday diini gashana wuu joojin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam askar ma qoranin xabsiya ma samaysanin waxba ma samaysanin carab oo khamri ka dheragtana wuu yimi 15 sannadood ee horena way cabayeen ee islaam lahaa 15 sannadood oo islaam layay oo la tukanayo oo la soobayo haddana cibaadaadka labada haddana khamriga la cabayay waan la joojinin laakiin mar qura la yidhi ka fogaado iska daaya dabeetana eraygaasaa ku filaaday askarna looguma yeedhin cidna looguma yeedhin dadka haddaynu diin geelino oo wax barro oo iimaankooda xoojinno balwaddan waynu celin karaynaa waa celin karaynaa haddaynu dowladda ha ku taageero waa yarayn karaynaa qaanuunku wuu yarayn karaa una ma joojin karo waayo waxay yidhaahdaan shay market leh inta shay suuq haysta intu suuqu jiro cid keenta la waayi maayo daan maanta labada ugu waaweyn keena ama saddexda ugu waaweyn magaaladiina jooga hadda isugu nimaadno waayeeliyo aynu wacdino oo yidhaahdaan waa ka baxnay saddex kaluma keenaysaa waayo suuqii baa jira meesha waa inuu suuqu go'aa oo kan hadduu iska daayo ku dambe xataa hadduu keeno waa inaan suuq jiraynin siduu ku joogsan kara waa sidaa waa inaan suuqu jiraynin maaha qof iyo 2 iyo 3 dan oo qura waa inaan suuq dadkii ahaa customerska zabuunka dadkan gadanaya waa inay joojiyaan markaasuu suuqu engegaya dadkanina waxay ku joojin karaan
dee haddii wacdi iyo diin iyo tale iyo caqli iyo wax ku kordhino haddii uu u muuqdo inuu ceeb yahay xataa waxyaabaan ka yaabay waxaa ka mid ah galbeedka nimanka reer galbeed dadka droogooyinka isticmaala waa dabaqada hoose bulshada inteeda mudane hadday droogada iyo waxaan isticmaashay way